سك ووري عاو شيكا اللي هاي شيكا اللي هاي وحواي dadka habaaran iyo dadka duceysan dhibka ay ku hayaan dadka habaaran qofki waa tusaale Yurub iyo Carabaha ka hadla ma faatay Sacuudiga oo qofka taga 3 sano wax biilay markuu la talxiilo xagga tago xagu qiimid Sacuudiga a'uudu billahi minash shaytaan rajim arabti muu qiimid kan xawhaya habaaran yahay waa ki 10 sano wax oo baawur ku soo dirdiray iyo qadaamo dadka ku biilay waa la caynaaba waxa ka sii daran qof ay Yurub joogo شنو شرعي سوغا يا الله شرعي كهلا افركنو اروسنا ددو بيلاي وحو دها بل ولالاها iyo hooyada soo sileen maxaa la magacay maxaa qabsatay 4 sano maqneed 5 sano maqneed war muxuu qabsadaa idinka Yurub isku cilcishanaysi dawladaha Yurubna waa taqaana waraqada ku soo hurgufaan idinkana telefoonada ku soo hurgufteen qofka isaga badaalanba ma faatay markuu idin imaado inta sano idin bilaay hal marka aamusa madan krim familka kasto laba qayb waa mid habaaran iyo mid duceysan kan duceysan adigu hormara waa kuwa dalka joogo oo aroosa ada aroosina ilmo dhala ada gurinay guriga degan ada dhiso leh wax ka sameys oo soo kaca subaxi alaasay anjiriis soo cuna suuqi soo wareega kafeego iska caba kan habaaran waa ka dibadda joogo sana ordayna waa shaqeynay waa dire asaa ku baashala warehouse aadi waa soo xamaali waa u dire London joogta opera wada waa dire Mareykan joogta traga inay waa dire en gabdhaha oo Soomaalida qurbaha joogo badana intaan aroosin meeqa taqaana oo duqoodi oo walaalkeed ama walaaleed ay dhigeen abay aroos ma dhahayan sababtoo ay ka mashquul yahay aadamaad dhan gacmaha qalale ku duceysan alla biilooya ma faantay dadkan dibad joogo waa habaaranahay runta ma la isku sheego maanta waxa la sheegaa dhibaatada ilmaha Yurub Soomaalida ku nool ay dhaleen ay ku hayaan waalidka ku hay ilmaha maaya anugu Kenya la keena ama Ethiopia markii loo dacwoodo waalidkii Sweden la keena markii la keeno odag iyo abartii waxay degiin gobolada dhaardheer gobolkii oo daga anugu waa rafana luuqadii oo barana iskoolkii la qabsana da markuu iskoolkii fiicnaado waa la soo ordaa Stockholm la soo daga okay Stockholm markii la soo dago oo cabaar la deganaado habartii iyo odag passport leela odag wuxuu dhahaa u bararabayna wado xagee London Ingiriiska la okay anugu waa rafana wuxuu yaqaana xoogaa Soomaali xoogaa Ethiopian iyo xoogaa Swedish Ingiriis oo barna soo u rabto xoogaa markoo la qabsado fagita qaahiro laga tuura xoogaa Carabi soo barna soo rafaada soo hadana wixii la qabsay fagita Turkiga la geeynaano markaas waxa uu leeyahay ilmihi qurbaha wax ma barnaayeen adiga waale anugu saasay wareejina makiinad cajiiniya maanta waxa idin sheega nimanka aan qira iyo adduunyada ugu doqorsan ya wiila la dhala hooya dhalayso soo korinayso soo barbaarinayso asaga oo 20 sano jiro 25 sano jiro guriga hooyadiisa joogay gabadho kansana waa lagu dara marka lagu daro maxaa laga rabaa in uu gabadha sidoo dhaqanka ahaan jiray inaad naagtaada guriga kansato hooyada iyo ayada isla degaan saaxiibo noqdaan familka noqdo famil barakaysan gurigina lagu nasto hooyada iyo ayada ay saaxiibo noqdaan maya lagu dhaha abu waaba lagu rarnaado maxaa lagu dhaha makase hooyada aan banacbaha lagu dhaha hooyada adigu dhashay aan lagu dhaha waaba nacbaha ka war waa raaci xagee lagu geysana hooyada lagu geysana markaas hooyada iyo ayada aan ku tashanaayo inta lagu celcelina waayde ada habaaran ya daayeen hooyada ku dhashay hadii ku tiri marrabo hooyadna marraba dheh dhaxdan istaajida meel dhax xitaa at least shakaladii haya xogaa intaan shakad bilaabay shaatigayga waqooyinaya waxa way biyo iga daatay ha igu mashquulina waxa idin sheega waxa way Soomaalida anoo ku wareeray ma fahanteen laba su'aal aan ku wareeray ina ishraxdaan raba hal hooya waxay dhalaysaa 6 anug 6 markii dhasho mid waa dheer yahay mid waa gaaban yahay mid waa cad yahay mid waa qurxan yahay mid waa fulxan yahay mid waa buuran yahay mid waa caato mid waa waalin ilmiin hal hooya ala badala wada xalaal 100% markaas waxa rabnaa inaan noqono one generation oo is haysto oo isku mowqif ah dhibaatada haysta taas waa ko number 2 nimanka Soomaalida marba hadoo konton gaaro soo caafimaad qaba ma dhinto adduunyada soo caafimaad qaba lagu soo boodaa maqlay wadnaha istaagi shil baawar ku dhinta maqlay ma jirto anaga dhikaro qaba gaas oo qaba wuxuu qaba sokor overweight waayo stress ahayo intaas yaa u yaale naagtu sideed u dhashay sababtoo ah way dhibaysiin nimankan cuntana waa ku disheen sun ah oo saliid ku badan naga khaleeyno aan wada noolaan dadka ugu doqosana ku sheega ko ninka ragga ugu doqosan waxa way ninka naag ay u dhashay maxaa la dhahaa isheeg 5 canug
shan ama lix ama sideed ilmaha loo dhalay oo furay kaasaa ugu doqonsan nimankan dumarka waxaa ugu doqonsan naag sideed canug ayadoo wadato nin dhalin singala raadinayso ma fahamtay oo fogitay dhada afrika mid ka kansanayso hadudinayso wallaahi nimanka bilaa soomaalida abaal malahan aniga waxa waay waa keena waa laga tagay waxaas dhiga ka doqonsan makase dadka Soomaaliya joogo oo niman tuuga ah oo ilmahoodii dhan Mareykan nala joogaan Turki joogaan Yurub joogaan qabiil ku taageera oo la safan deys wara ayla waa qofka dhimanooday daanyar ma baade kulli isku soo dudub yaa kisto qosama kase kan hadda ani meeshan isoo caaynayo